maanta waxaan idiin haynaa 10 hablood ee adduunka uu garka ka soo baxay. Adduunka inta aad ku nooshahay maalinba wax la yaab leh ayaa la kulmaysaa. Sida aad og tahay, habluhu waxay ku qurux badan yihiin gar la'aanta iyo naasaha, halka raggu ay ku qurux badan yihiin garka. Waxaa laga yaabaa in aad maqashay ama aragtay haweeney Soomaaliyeed oo gar leh. Nasiib darro, ma jirto warbaahin soo bandhigtay arrintaasi. Haddaba garka hablaha ka soo baxa ma waxaa sababa caafimaad xumo? Ma laga hortagi karaa arrimahaasi? Barnaamijyo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Haatan waxaan idiin soo gudbinaynaa 10 gabdhood oo garka uu ka soo baxay. Gabadha koowaad ee garka leh waa gabar lagu magacaabo Harnaam Kaur. Gabadhani waxay ku dhalatay caasimadda Ingiriiska ee London. Asal ahaan waxay ka soo jeedaa India. Waqti badan ayay warbaahinta iska qarinaysay si aan loo ogaan garka ay leedahay. Maalinkii dambe ayaa sawir gacmeed laga soo qaaday, waxaa lagu soo bandhigay goob dharka lagu xayeysiiyo. Wixii waqtigaasi ka dambeeyay, warbaahinta ayaa la kulantay oo arrimaheeda dhan banaanka soo dhigtay. Gabadha labaad ee ku jirta gabdhaha garka leh waa gabar lagu magacaabo Annalisa Hagliman. Waa gabar Maraykan ah. Ayada waxaa lagu ogaaday kadib markii lagu soo bandhigay showga TLC show oo lagu soo bandhigo dadka isjecel. Ayay halkaasi kula kulantay ninkeeda. Ayadoo ahayd xaaskii labaad, ayay soo dhoweyn ka heshay islaantii lala qabay ee miweynta ahayd. Kadib markay aragtay naagta ka yar oo gar leh, isla markaasina waxaa la siiyey taageero. Haweeneyda saddexaad ee ku jirta haweenka garka leh waa haweeney lagu magacaabo Jennifer Miller, waxayna ka soo jeedaa America. Waa gabadhii hay-adda Circus Amok aas-aastay oo waxay ka shaqayn jirtay hidaha iyo dhaqanka sanadkii 1989. Jennifer Miller ayaa waxay tahay gabadha ugu caansan gabdhaha garka leh, ayadoo waqti dheer ku soo dhex jirtay ka shaqaynta heesaha ciyaaraha hidaha dhaqanka Maraykanka. Taas ayaa sababtay in ay caan noqoto, waxaana markii dambe uu telefishin uu sameeyey in uu sheeko taxane ah uu ku soo bandhigo nolosheeda, taas oo haddana caan ka sii dhigtay. Gabadha afraad ee garka leh waa gabar lagu magacaabo Letter B. Waxay xubin ka tahay Fairways oo ka shaqaysa modeling-ka, waxaana sheekooyinkeeda wax ka qoray gabadha caanka ah ee lagu magacaabo Opera Singer oo leh showga caanka ah ee gabadhan garka leh ayaa la sheegay in ay garka samaysatay. Gabadha shanaad ee haweeneyda garka leh ku jirta waa 49 jir oo lagu magacaabo Maryam. Maryam waa haweeney ku dadaasha garkeeda sidii ay kor ugu qaadi lahayd maalinba maalinta ka dambeysa. Gabadha lixaad waa gabadha lagu magacaabo Jana Barnell. Waxay ka mid tahay gabdhaha caanka ah ee garka leh, ayadoo waqti badan lahayd. Waqtigii ugu horreeyay waxaa lagu ogaaday kadib markay isku soo bandhigtay Bad Ladies oo waqtigaas 4 sano keliya furnayd. Gabadha toddobaad waa gabadh lagu magacaabo Vivian Wela. Waa gabadha ugu gar weyn gabdhaha garka leh, waxayna ku jirtaa buugga lagu qoro adga waxyaabaha la yaabka leh. Haweeneyda sideedaad waa Kore Babusiti. Waa hooyo 30 jir ah markii hore, waxay ka timid Oakland. Haweeneyda sagaalaad waa Jesse the Beard Lady. Gabadhani garka leh ma taqaana sababta uu garka uga soo baxay, sidaas daraaddeed ayay uga heshaa dowladda taakulayn. Haweeneyda tobnaad waa Anilia Jones. Waa haweeneyda garka iyo qaab dhismeedkeeda uga eg ragga in ay haween tahay looma malaynayo. Waxaa ku garan kartaa oo keliya naasaha. Waxaa intaasi inooga eg barnaamijkeennii gaabnaa ee aan kaga hadlaynay 10 haween ee adduunka oo garka leh. Haddii aad ka heshay, like garay, isla markaasina share garay si ay dad kale uga faa'iidaystaan. Waa mahadsantihiin.